dhammaan culimada waxgaradka abwaaniinta waalidiinta hooyooyinka sharafta leh howlwadeenada guriyasabo iyo dhammaan dhalinyarada waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa sharaf weyn ii ah in aan ka soo qayb galo kulankani aadka u qiimaha badan oo looga hadlaya aayaha iyo future-ka ubadkeena, anigoo ka cudur daaranaya in culimada iyo dadka iga aqoonta badan hortooda aan soo istaago. haddana waxaa ijiidaya dareen ah naceebka aan u qabo mustaqbalka gabdhaheena oo la haleynayo. anigoo ka faa'iideysanaya jaaniskani ayaa waxaa mahad ballaaran u celinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurtageliyay inaan isugu imaano halka kan, in la xaqiijiyo marka hore qofka bini aadanka ah addoonnimada allah subxaanahu wa tacaala oo inagu maneystay, isla mar ahaantaana qof in la ilaaliyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. mufaa'idka iyo faa'iidooyinka guurka hal mawduuc oo kaliya laguma soo koobi karo, waqtiga oo aad u yar ayaa waxaa leeyahay guurku wuxuu ka hadlayaa mawduucyo aad u badan, wuxuuna u baahan yahay anigoo codsi gaar u jeedinaya guryasamo in looga hadlo barnaamijyo aad u badan si u hagaago jiilka soo socda mustaqbalkooda. sidaasi si lamid ah ayaa guurka waxaa loogu talagalay in uu ku bato ummadda muslimiinta sida sheekha uu ka hadlayaba. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga hadlay aayadaha qur-aanka kariimka uuna ku caddeeyay guurka waxaa laga dhigay waa jacayl iyo naxariis. maxaa jaceylka loo soo hormariyay? labada qof ee isguursanaya waa laba qof ee israbta ee isjecel, kadibna naxariistii ayaa lagu kaabay. haddii bal jaceylku daciifo naxariistaa soo xoojiso si reerkaasi uu usii jiro. ilaahay dhexdiinana wuxuu yeelay jacayl iyo kalgaceyl, aayado iyo axaadiis fara badan ayaa jirto. sidoo kale waxaa jirta taariikh yar oo gaaban oo arooskayga ku saabsan, degdegina insha allah waqtigana aad ayuu inoogu yaryahay. in la qabtiro baahida jismiga ah ee labada qof ee isguursanayso. haddii baahidaasi aan si sharci ah loo buuxin sida sheekha uu ka hadlaya ama waalidiintaba ay su-aalanayeen, waxaa imaanaya fawaaxisho iyo zino iyo in ummadii islaamka xanuun loo soo gudbiyo, ilaan waxaa la agmaray wixii sharciga islaamka uu jideeyay. sidoo kale waxaa imaanaya isku xir bulsho, labada qof oo isguursatay oo kaliya isma guursanne caa-ilooyin ayaa xididaya, sodog dumaashi, dad badan ayaa maxaa tirahdaa xiriir uu dhex marayaa. sidoo kale in la rumeeyo riyada ah hooyanimada iyo aabanimada. haddii aan guur la helina riyadaasi ma suurtagalayso. qof kasta oo guursanaya 60% wuxuu ku riyoonayaa wiilkii inuu aabo noqdo, in ubad la dhalo. hadafka kaliya uu ka leeyahay guurka waxaa laga yaabaa inuu aabo kaliya la dhaho, gabadhiina itiraad uur baan leeyahay walcabaana waan dhalayaa ee hooyo noqoto. laakiin waa midda kaliya oo u rumeynayso guurka. waxaa jira marka laga hadlayo guurka xilligan jiro axaadiis tiro badan oo Caaisha radiyallahu anha ay ka warisay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka hadlaya nikaax mid hadda sheekha oo ka hadlayay. haweenna waxaa ugu barako badan midda meherkeeda fowdeysan, bilcaks 15,000 buu sii marayaa. ninka yiraahdo maanta gabar baan guursanayaa gaala god ii gale garuun ii keeno waay, hadduuse 15 awoodin saaxib iska dareer. meesha sid waxaa ka imaanaya wiilashii dhalinyarada jiilka yaryar ee cusbaa ee soo korayay ee raba inuu aabo noqdo ama bulshada wax ku siyaadiyo dib u dhac ayaa ku imaanaya. ma soo koobi kara, laakiin bal aan fiirino 30 sano ka hor guurka Soomaaliya kan maanta qof walba update wuu ka dharagsan yahay, laakiin 30 sano ka hor aan artuwanti wiilasha maanta ah 10 sano ku darso 30 sano ka hor guurka siduu ahaa. midka magaaladana waan fiirinaynaa, kan miyigana waan fiirinaynaa. 2009 bishii 7 mar aan ka shaqeynayna barnaamijka guurka iyo arrimaha qoyska magaalo la yiraahdo Qarqooro oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta Gaalkacyo ayaa waxaan kula kulmay hooyo da ah oo 80 sano jirta. ku darso 2009 hooyo da ah oo 80 sano jirta markay guurka iga sheekeynayso waa xilli aad u fog. dadka miyiga ayaa khibradda iyo faa'iidada dhaqanka xambaarsan. inkastoo aan muslim nahay oo aan dhaqan leenahay, haddana Soomaalidu waxay dhaqan aad u wanaagsan. waan soo koobayaa 2 qiso oo cajiib ah iga sheekeysay aabihii koriyay gabadhii rajada ahayd iyo hooyadii korisay wiilkii agoonka ahaa. mar allaala markii xilliga guurka la gaaray ayuu inantiisa la dardaarmay sidee qaab suugaaneed. muxuu yiri ma garanaysaa inaan yahay dhiil haddaad catir la maagayso, dhiil haddaad culay la maagta catir weyn u sameyso, cadkoo reebiya maandhay caraq hadduu dhiga ka cunino canka ha ka gelinin. raggu waa libaax barqadii bay guriga kusoo laabanayaan. wixii haddaad juq siiso maxaad dhowta la hortagaysaa?
na ardaaga soowaana lama xoojo na dabku waa xurmayso xaabo lama saar xaliima ay xadiyayso xaalinka maraacdi maadaama hooyad ay dhimatay wuxuu qaaday mas'uuliyadii hooyada isagoo u muujinaya yani waxyaabihii looga baahnaa inta badan dhalinyarada ma fahmayaan hadallada adag catir waxaa lahaa maro yar oo istiraasho ah dhiisha markii la culo ayaa lagu masaxaa si madmadowga iyo qashinka uga haro ayna usoo baxaan caano nadiif ah oo keedsami kara haddii gabadhii aan loo sheegin khaladaad ayaa meeshaas ka imaanaya ardaana waa meesha yartaa la fariisto iska xooji xaliima ay xadiyaay ma aha laba gabdhood uu dhalay laakiin inantiisa sida gabdhaha hadda lagu suuray qurxay sharafay dheemanay waad wacantaa hooyo halkaa ka bax ayaa gabdhihii hore loo ammaani jiray xaliima ay xadiyaay soo xaalinka ma raacdin yacni ha igu keenin eedan odagan gabadh aan habar la-aan ee walba ahayde maxaa wax ugu sheegi weysay iga ilaali shaqalada iska tiiri dhiisha cul reerka dhis guriga hagaaji dhigaalkana ha ilaawin bilcagsi waxaa jirta ayadana maamo la yiraahdo way xukun adkeed wiil agoona ayay korisay wiilkeeda ayay waxay ku tiri xilliga guurka markuu gaaray si suugaanaysan samow faaraxo gabayga waan kuu safirayaaye haween midaad soojo ka raacdo sooyaan hashaadii haddii sooriyo lagu heebsho dhigahay ku siiyaan haddaad saluugto waxay bilafiysaa dhaba haddii surun banaanaado sokeeyuhu hadduu kugu naco soorta kugu diido saabuun allow ku sii waan ku sugayaaye waxaan u maleynayaa inay yihiin erayo aada u adag yacni sooyaan hashaadii haddii sooriyo lagu heebsho hal uu aada u jeclaa oo sooyaan la yidhahda saaxiib iska dhib inan baa doonanaysaa hashaa isku dhajinin meeshaasna waxaa ka cad yacni dhaqankii hore in ay ka meed in soori iyo wax la bixiyo laakiin xujo kuma jirin dhigahay ku siiyaan haddaad saluugta ha hadlino wiilka kan islaam baa soo korisay oo tarbiyada aabiis buu u baanayaa lii oranin waxay milafiisaa dhaba haddii surun banaanaado aqalkii la dhisay hadduu inantii isku turi waayey adkayso sokeeyu hadduu kugu naco soorta kugu diiday ilaa insaanka hadal lagama waayo gabadha tanta waa saano saabuun allow ku sii waan ku sugayaa yacni saabuunta haddii dhulka ku dhacdo oo lasoo qaado oo la dhaqo waxba kuma haran duco iyo waxay isugu dartay wiilkeeda dardaaran waxaa la yidhahdaa waa hooyadii ugu xukunka adkeed bal eeg qaabka qiimaha leh ee sharafta leh ee ducada ku jirta ee dardaaranka ku jirto halka maanta hooyadii oo guriga ku jirta amaba hodheelka dhinaca ka fadhisa inanteedad mooday in dhurwaaqaarka sare ka goostay madax qaaban ee hoteelkii lasoo istaajinaya 30 sano hooyadii joogtay ayaa waxay ka dardaarmaysaa in wiilkeedu uusan wax yacni goobta arooska khaladaad iyo ficilo uusan sameynin waa ayaan daran ugu habsatay in hooyooyinkeena ay maanta ka madax adeegeen amaba ay iska indha tirayaan khaladaad ka dhacaya sidoo kale guurka magaalada waxaa dhihi jira gabadha haddii daaradda lagu arko indha adag arooskeeda ka booda maxaa kusoo bixiyey waa ceeb waa lagu arkayaa bilcagsi maanta gabadhii ayadaa ku maxabeynaysa soo dhawow ayadoo intaa moodidba maradii laga ilaabay 9 kilomitir oo maryaana soo xaaqaysa gabadha waa la xashi jiray huruud iyo caani adduun baa la marin jiray 7 beri baa meel lagu qari jiray gabadhii ubaxaheed oo aashala taqaana maanta guurkeeda nooc kale kula noqonaysa aroosadii meel baa lagu qarnaa xataa ninka guursanay ma arkay ilaa xujo lagu xiro waxaa laga qaadi jiray magaalada dhexdeeda wax la yiraahdo waxaa laga qaadi jiray waji fur marada ayaa wajiga laga saaraya islaan ayaa meesha la fariisinaya waji furka keen ma arkaysid haddii kaleeto inanta tan aada guursatay marka waxaad u malaysaa yacni 30 sano ka hor ama 20 sano ka hor guurkii jiray inuu 60% diinta uga dhawaa guurka maanta jiro sidoo kale guurka xujada ah xaliimaa lagu meheriyey 4,000 anna 6,000 faaraxo maskiin ah hadduu 5 sano shaqeeya xataa aan 6,000 awoodin inuu guursado iyo inuu qalad ku dhaco waxaa u fudud inuu qalad ku dhaco because gabadhii hooyad waxaa le sooriyada odayaasha kala hadal hoteelka kala hadal taada iyo dahabkaagana waa si waxaa kaloo kuusii dheer marajaan oo meel inooga timid aana garanaynin oo lacag lagu karinayo waxaan u taagnaa aniga qiso xanuun badan wiil yar oo maskiina oo guursaday ayaa gabadhii markay 4 saac habeenimo la keenay ilmo adeeryaal oo nafasaxa banaanka u baxaa laala jaala banaanka gabadh dharkaa laga bedelayaaye banaanka istaag waa ninkii dhammaan ee gabadha soo guursaday mas-uulka ahaa arijaalo qawaamuuna cala nisaay ma raggaa talinaya markii guur iyo wax la joogo mase dumarkaa talinaya waayo dhaa banaanka maxaa ku baxaa maxaa jira laa gabadh dharkaa laga bedelayaa banaanka istaagaas martiyaan banaanku istaagay 40 daqiiqo markuu taagnaa lahay gaarigii ugu dambeeyay yaa habarteed boorsadii la saarneed oo dharka looga bedeli lahaa oo waayan ku yiri maradan jaan maxay tahay maradan islaanta lahayd baa daba taagan waa kiro haddii caawa guriga ay ku barisana lacag kala qaadaya
waxaa danta qasabtay in muddaha inuu wiilka banaanka isla fadhiyo isagoo salaamin weli arkin bay waxay la qoslaysaa gabadhii koonfeeradda hadda laga sheekeynayo run ahaantii hooyooyinka waxaan ka codsanayaa in ay in badan fiiriyaan in ay in badan xeeladeeyaan xilliga guurka marka la joogo gabadhana waxaan kula dardaarmayaa haddaaba ninkan adiga aad jeceshahay ma xujeynaysid 9 sano kahor waxaa jirta waxaa la baby love ninka la jecel yahay laakiin hadda maya baby cash maxaa heli kartaa waa telefoonka waa internetka waa wax kasta haddii aad damacdo inaad waanaysid waxay ku leedahay rag asxaan looma kale iga jooji baby cash ay soo socdo baby cash balansana isaga dhanba waxa lagu qiimeynaya lagula socdo waa jeebkiisa midkii maskiin Allah u naxariisto jacaylna ma helayo guurna ma helayo naagna ma helayo xataa sheeko maala yacni ma helayo maxaa heli kartaa jibsi iyo chocolate ugu yar waxa la isku shukaan sida maanta marka taasna waa ayaan daro nagu habsatay